kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa magacaabay guddi ansixin doona baarlamaanka cusub oo ay yeelanayso Puntland siyaasiyiinta u sharaxan xilka madaxtinimo ee Puntland ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ka soo horjeedaan guddiga uu magacaabay madaxweynaha Puntland waxayna sheegeen in iyagana dhankooda ay soo dhisi doonaan guddi kale magaalada Hargeysa ayaa lagu xiray 4 suxufi kuwaasi oo sameynayay mudaharaad iyagoo sheegay in dhibaatooyin loo geystay ay ka cabanayeen aragtiyo kala duwan ayay ka bixiyeen aqoon-yahano waxgarad iyo siyaasiyiin ku dhaqan magaalada Garowe mooshinkii shalay ka dhanka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Saacid oo markii dambe baarlamaanka ay kalsoonida kala noqdeen xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore Saacid wararka caalamkana waxa ugu waaweyn mar kale maanta oo talaada waxa soo buuxiyay xarunta wadankaasi Ukraine ee Kiev dad aad u fara badan oo mudaharaad sameynaya waxayna qaarkood hareereeyeen oo ay buux dhaafiyeen xarunta baarlamaanka wadankaasi iyagoo codsanaya inuu shaqada ka tago madaxweynaha wadankaasi Ukraine wararka sportigana waxa ugu waaweyn laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Chelsea David Luiz ayaa imika lagu soo waramayaa in ay doonayaan kooxo waaweyn sida Barcelona iyo Bayern Munich qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu warka idinkugu soo gudbin doonaa